deeqo diraac geedi oo 3 sano ka hor ay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay ku xukuntay 15 sano oo xarig ah ayaa waxa ay ku geeriyootay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho sida ay warbixintani noo soo dirtay wariyahayaga Nimco Maxamed Bashiir hasaakay dhimatay deeqo ahaladii aan ku wareejinay kadib markaan nidaamka u yaala sidaas oo kale qofka markuu dhinto la marsiin jiray deeqa diraac geedi oo 3 sano ka hor ay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ku xukuntay 15 sano oo xabsi ah ayaa saaka ku geeriyootay gudaha xabsiga dhexe ee Muqdisho haweeneydan oo xukunkeeda loo cuskaday la shaqeynta al-shabaab ayaa u geeriyootay xanuunka sokorta ama macaanka oo dhowr bilood ay u jiiftay sida ay RTN u sheegtay Filis Macow Sabriye oo kamid ah tiraha weena oo ay qol wada seexanayeen marxuumad deeqa diraac geedi maxaabiis waxaan ahay in qolka ku wada nool laba maamo oo wada xiran aan ahayn aniga waxaan meesha kula noolaay 10 bilood hortayna way joogtay way iska xanuunsaneedo dhiikarna way qabtay sonkorna way qabtay way iska xanuunsan qof iska bukaan socday daawadeedana waa qaaday jirtay muddo hadda 40 cisho ama 35 meelahaas ayaa hadda xanuunkan dhul riday oo ku soo dhacay xanuunkan hadda uu qabtay waa la tacaalayo intaas waa la daaweynayay waa la waday dhiig laga qaaday ka sonkorta kan dhiikarka intaba waa laga daaweynayay hadda qofka hadii malaka mowd oo hayo malaka mowdan baa haye mowgi wax kala haye male way xanuunsaneed oo aad bay u xanuunsaneed oo u xanuunsatay ka bacdina hadda ajishiya u timid sidoo ku xusan heshiiska caalamiga ee Geneva Convention ee ka hadla sharciga ayaa sheegaya in maxbuus kasta uu xaq u leeyahay inuu helo daryeel caafimaad oo dhameystiran waa inuu helaa maxkamad rasmi ah oo laga soo cusboonaysiin karo dacwadiisa maxbuusku waxa uu xaq u leeyahay in uu xor ka ahaado dhibaatooyinka ka dhanka ah sida jirdil galmo iyo wax waliba oo caafimaadkiisa wax u dhimi kara waxa jira warar sheegaya in maamada iyadu ay istishay kuwa kalena waxay sheegayaan in sun la siiyay arimaas maxad kala socotaa subxaanallah aniga waxba kama warqabo ma arkin ilaahay qadartiisaas malaka mowdka disho mooyaane waa qof dilayna ma arag iyadoo isdilayna ma aanan arag way xanuunsaneeday intii inta adiga 4 bariye way u sii jilciday qaarkan hore ka xuraaminaysa saaka markay naftu ka bixisay ma la joogto waa la joogo lugaheedan isku duway qaarka hore iyadoo nafta ka socotaan arka qolkan galay markaan soo baxana gabdhaha askartaan u sheegay waxaan islaantii sidii ka sii jilicsan tahay qof ruux baxaayna u eegtaa ka bacdi waa u tageen qaarkan hore oo dhan dhidid shuxuuraha saarna neeftana kore u raaciis sidii aan ku dhimataan oo qolkaasaan la jooga laba sariirood isku dhawaan kala deganeen 10 bilood waa isla joognay way iska xanuunsaneen waan iska socotay oo way iska jaanan qaadanaysa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa sanadkii 2014 mar qura xukuntay marxuumad deeqa diraac oo lagu xukumay 15 sano oo xabsi ah iyo 2 nin oo dil toogasho ah lagu fuliyay waxaana nimanka la toogtay iyo marxuumadda saaka xabsiga ku geeriyootay lagu soo eedeeyay dilka gabar ardayad ahayd oo lagu magacaabi jiray Nafisa Cusmaan oo Muqdisho lagu dilay bishii Abriil ee sanadkii 2014 malakumeedka ma celi karno anagu malakumeedka ma celi karno laakiin intii qof bini aadana loo dadaali lahaa deeqa waa u keenay kaysanida waxaan ka keenay maxaan ku raahdaa taqaatiirtii kaysanay waa keenay maalin kasta iyo habeen kastana taqaatiir loo sameeyo kor taagan ayaa jirtay waa ku jiraan xabsiga ku wada jira iyagoo bokosaas qayb gaar ah oo karantiil ah ma laha laakiin cudurro yani cudurrada caadiga ah sonkortu waxay ka mid tahay cudurrada caadiga ah oo qofka uu la nool yahay oo hadda taqaatiir dadka ka suulido maxaan ku iraahdaa ma hayno marka macnaha ma garanayno meel hadda gaar ah oo aan dadkaas geeyno Nimco Maxamed Bashiir RTN magaalada Muqdisho haddaba daawadayaal waxa stuudiyaha igula sugan Khalid Sheikh oo madax u ah Cabdicasiis Advocate oo ah garyaqaan Soomaaliyeed oo stuudiyaha tan igula sugan Cabdicasiis ku soo dhaw RTN kiiska deeqo diraac geedi oo ku dhimatay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho sidaan warbixinta ku daawanaynay 3 sano ayay xiran tahay 2014 baa la soo xiray dil iyo eedamo inay ka tirsan tahay ururka al-shabaab ayaa loo qabsaday
markii dambena waxay u gooriyootay xanuun soo ritay haddaad marka hore noo faahfaahisid xuquuqda uu maxbuusku leeyahay inta uu ku jiro xabsiga. Okay, waa mahadsan tahay. Allah u naxariisto marxuumadda Deeqo Dirac Geedi saa u sheegtay warbixintan lagu sheegay ruuxa xuquuqdiisa waxay ku qoran tahay documenti la pass gareeyay oo international law ay kamid tahay documentkii u horeeyay ee xuquuqdan maxaabiista taabanaya waxaa la oran jiray Universal Declaration of Human Rights waxaa la ansixiyay sanadka markuu ahaa 1948 marka kadib UN-ta markii la aasaasay kadib UN-tan waxay ansixiyeen sharci kale oo u yaala xuquuqda dadka la soo qabtay oo marka accused person la yiraahdo wali aan la xukumin iyo dadka markii la xukumo ay maxaabiista noqonay documentka waxa la yiraahdaa sagana Geneva Convention on Human Rights marka maadaama Soomaaliya ay tahay wadan kamida UN-ta way ku qasban yihiin in ay maartay documentiga ay ka dhigaan sharcigooda waana sharcigooda waayaba ku qasban yihiin sharcigooda marka maadaama ay UN ka mid yihiin sharciga ama xuquuqda ay leeyihiin dadka maxaabiista waxa kamid ah ruuxa markuu xabsi ku jira waa in caafimaadkiisa iyo cuntadiisa wixii cunaya kulli la fiiriyo ruuxa waa in securitygiisa la ilaaliyo hadda keeskan oo kale aad ay uga dhacaan ama xabsiyada Mareykanka ka dhacaan ruuxa waa la dili karaa cuntada sun loogu dari karaa ruuxu isdili karaa waxaas oo dhan nimanka xabsiga joogay ee ilaalinaya ruuxan laga rabaa inay fiiriyaan ruuxan caafimaadkiisa suu yahay sida hadda ku sheegtay marxuumad waxay cudurro badan halkiin marka waxa kariyo macaani qabtay ruuxan oo kale keeskan oo kale case special waa ruuxan waxa la rabaa in isbitaal uu ku xariisan yahay isbitaal oo daryeel ah la geeyo marka shirkadan saraakiisha xabsiga hadda oo TV-ga la hadlayay waxay sheegeen in dhakhaatiir loo keenay oo xabsiga loo keenay habeenii maalin la tacaalay laakiin Cabdicasiis waxaan rabaan ku weydiiyo Khalid haddii maxbuuskii uu diido tusaale ahaan inuu cuntadii qaato ama uu diido inuu dawadii qaato isagii kiiskaas oo kale loo tacaalay waa in lagu qasbo in sanka laga siiyo waa in ayadoo cirbad ahaan loo siiyo marnaba in dadka xukumaya xabsiga inaynan ka ogolaanin maxbiiska cuntada sanka ka siiyaan ama ku duraan marnaba inay ka ogolaadaan lama rabo inuu maxbiiska cunto la'aan u baxa hadduu caafimaadkiisa u sii darsanayo sida hadda lagu sheegay waxaa la rabaa inay isbitaal weyn u sii qaadaan isbitaalka xabsiga kali dhakhaatiir ugu keenin dib u qaadaan marka arrintan oo kale arrin weyn waaye waa inay dawladda maartay ama xukuumadda xukumaysa xabsiga ay dib u baaraan ay sal gaaraan circumstance-ka sababay inay duruufaha sababay inay marxuumadda ay maartay ama isdisho ama sun la siiyo ama say ku dhimatay waa inay sal gaaraan ay soo ogaadaan maartay ay warbixin ka keenaan Deeqo hadda xabsiga ku dhex dhimatay Khalid nin garyaqaanna waa tahay kiiskan oo kale marka baartaan lagu sameynayo hadda inta macluumaadkan ka hayna inagu aan ka ognahay walow dawladuna dhinaceeda baartaan ka wado kiiskan oo kale yaa la dhihi karaa mas'uuliyadda iska leh in la badbaadiyo inkastoo qofku xilligiisa uu dhimanayo nolosha Deeqa dadka xabsiga xukuumaya maartay mas'uuliyiinta xabsiga ayaa laga rabaa maartay in ruuxan caafimaadkiisa wixiisa daryeelkiisa waxa dhan inay maartay 100% ka dhigaan marka waxa u maleynaysaa maartay in xoogaa maartay ay darxuma ay meesha ka yara jirtay marka in ay baaritaan sameeyaan la ogaado maartay hadii xabsiga lagu yimid la dilay hadii sun ay cabtay hadii cuntada wax loogu diray waxa dhan inay sal gaaraan ay soo ogaadaan dadkii mas'uulka ka ahaa maartay mid loo weydiiyo su'aalaha la yiraahdo ruuxan saaka markuu dhimanay yaa joogay mas'uulka ah yaa ilaalinay waxa dhan inay sal gaaraan way mas'uuliyiinta xabsiga aad yaad baa maasan tahay kaasi waxa uu ahaa Khalid Sheekh madaxa Cabdicasiis Advocate oo ku yaala magaalada Nairobi aad yaad baa maasan tahay